صباح وناكسن صباح وناكسن وناكسن وعن ربع قف كسن الشيو مستقبلك وحسن قلعة صوبته ما أنتوا مالين فرحت لي أنا وحر راسي أبي وكلنا نقضوا أنا وحر بطلك هنا مضحكنا أنا وحر وين نختار نقضوا أنا وحر وين بوليس نقضوا أبا هذا أي محاو فديسا يستقبل هذا ما عرفته هذه كلنا نقرأ عين الدورانية عسى وناكسن هرتوا ويناو لما أنتي وعرفتي وهليسين أنا هو بقى قف كسن يديس النسيب كيس على جراه وأقبل معه ترتيبته إزدجي له أنا وحنا بأنا كابتن بحنا نقض ودنكن هندية وحيابة بدن أيا كجرا سيد دل ضع بوب يكوسي بلساني وحن ديار وحا سو يدل إنا سو عربتر قناعستدا سوكا قناعستدا كتربانك إيو وحيابة شرعي دردا لما انتلك انت كشقيسان انتو ذا بدن وحا اي قبطان شقاء نكو هبونين ودنكن هندية دقاليس وحا هوسو ديغيا dadka ka ganacsada draagiska waa ka qaadi subax wanaagsan subax wanaagsan taliya horta magaalada markii joogtada ciilaba ku qabaa ciilkaas waxaa waa iska dhan noqona ku qabay sababtoo meeshaan ku dhahay booliska gobolka tixgeliya meeshaan sharci darowgu ma waa ku dhahay boolisnimo xataa waa nacay dadkaana la yaabana boolisna ma la tixgeliya dambiilayaasha xabsiga ayaan soo dhaxlaynaa madaxdan xabsiga ay ka sii deysaa laakiin adiga nasiib ayaa arrintaadu waa hadaa gurigaada adoo nabad imaanaysa aan ku noqonaysa waa way mid wanaagsan horta waxaa fiican qofka askariga markaas wax qabahay si daacadalsi u qabto sababtoo ah qofka wadaniga waxaa la rabaa wadanimada in iska dhabeeyo allaqdaba iyo tuugnimo inaad sameeya maahan ona ku ogna booliskeena lacag la ku shaqeeyaan laakiin saas inay sameeya maba fiicno wadaninimada ama ku jirta in lacag la kala qaato laluusha lagu shaqeeyo laakiin daacadnimo lagu shaqeeyaa jirta فيلمكن waxaa lagu turjumay raja cable tv muqdisho horta dhammaan marti sharafta waa mahadsantihiin meeshaan waxaa soo imaada dad fara badan dad lacag leha jooga krishna barsaad aa qaybka ah krishna barsaad nin hindi waa lacagtiis leeyahan lacag fara badan waa qof kastana horumarkiis waa jecel yahay marka hore ila soo dhaweeya krishna barsaad masraxa ina soo koro markaan krishna barsaad shahaado sharafaa la guddoonsiinayaa aad iyo aad baad u mahadsantiin aad iyo aad hooyadu carruurteedu marnaba iskama fogayso wax walbana way u samaysaa ilaa yaraanta ilaa uu ka barbaarayo ubadka sidaasi la mid a ubadkana aad buu u jeclay hooyadii waddankaagana waa inaad ka soo qaaddaa sida hooyadaa oo kale oo aad kalgacayl u muujisaa karti aad lahaataa aad wax ugu qaban karto dalkaaga qof walbana waa inu dalkiisa wax u qabtaa anigu waxaanoo idil igu dhiiriyey waxaan ahay nin hooyadii jecel micnaha nin waddankiisa aad iyo aad u jecel waddankaagana waa sida hooyadaa oo kale waa inaanad jeclaatood mar walba qalbigaaga aanad ka saarin aad iyo aad ayaad u mahadsantihiin maadaama halkan aad timaadeen welibana hadalkayga aad dhegaysateen نتيجة معاك وقول حتى ومحات سنة ولا فردا ايش قد اباني وحنا سداي قوان قلدنا يا قات سدا سينا ku fikiraya abani go'aankii wada khaldanayd beenatay sababtoo ah adigu dalkaaga ma nada aamin abadi waa saxan tahay aniga wadankayga ma aaminsaniba ilaa hadeertaana waxaan ku leeyahay wadankayga ma aaminsan aniga mar walba waxaan ka fikiraa caafimaadkaaga qofkii ka taxadiri lahaa
iyo amnigaaga qofka sugi lahaa oo keliya ayaan ka fikiraa baaba aniga waddankaygana ma aaminsani maymaynateed inaad duulasho looma baahno dalkan ciidan buu leeyahay burcad waxba igama qaadaysa aniga anna waxaan ku dagaalamayaa waddada xaqa ah ma garanaysa kulley waxaan doonayaa inaan hadafkayga ka mira dhaliyo goor dhowna guul baan ka gaari doonaa waanaad arki doontaa inataydi sugoo daawo oo keliya waxaa halkan ka dhaca inaad cabsataa looma baahna dalkan waa dalkeennii haddaanu dalkayga ka baqno xaggeenu joogna laakiin waddankiisku haleen ma lahan maya inateed inaan duurjoog ahana marnaba ma aha ama dadaannu dul joognaa aabo waa saxanta adiga nafsadaada qof ka fikiraysa ayaa loo baahan yahay teeda kale aabo aniga waxaan rabaa qof amnigaaga sugaayo inateeda cidna cid kale amnigeeda ma damaanad qaadi karto laakiin qof walba dadaalkiisa waddankoo dhan waa qariban yahay aabo maxaa la sameeyahay waddankan isku haleen ma lahan dadkiisa iyo asagoo dhan buu qariban yahay aabo waxaana wanaagsan adiga waxyaabahan aad sheegaysid oo dhan aad maskaxdaada ka bixisa aabo aniga halkanaan joogayaa meelaan halkan uga dhaqaaqaya ma jirto dalkaygaan ku dhimanaya waddani baan ahay ruuxduba xaggan bay iga baxaysaa haddii kale naftaydu ma garanayaba sidaan ku cafin lahaa anigu been kuuma sheegay inataydi loof baan ku hay halkan waddankan ma garataa indiyara leeyahy markaanu meelaan uga socday ma jirto kulley go'aanka adigaa iskale sidaa doonto waad samayn kartaa balse aniga qalbigaabay damqanayaba haddii aana jiraa dalkan ka baxo am indian mana laga yaabo indiya inaan dhinac uga baxo waan u dagaalamaya xaqayga dalkayga waddankayga calankayga intaba waan difaacayaa xornimadayda hey dadkan maxay ahaayeen talii burcad waay sawirada maxay halkan ugu jira maxaa derbi loogu dhaji waaye ii sheeg ayaan ku dhahay talii aad naftirkaa waa cusub tahay haddii meeshan ku cusub tahay waxaa laga yaaba beri inaad isbeddeshid ey aamus annaga dadku way naga cabsadaan sidaas ay tahayna wayna soo siyaartana adigana magacyadeena iyo sabradeena ayaa derbiyada ku qaraysaa soomaan laakiin maanta taariikh baa kugu dhacaysa halkaana halkayga maxaad qaadi kartaa ii sheeg adigaa kula hadlaya waree boolis ay gacan u qaadaysa soo ma war naga keena meesha soo baxa هو مش معلو تاجي مقرعدين عشان في عنتها وشو عرتني مكان بين لوعي دنبيلها سيدي سبا وحبر يا ملا عقاب مويه يا maxaa jira tali ii sheeg be maxaa kuriyooyis xogaa riiri inaa ku jirtaan dareemaya waxaa kuriyoonay inankaygiio isbatooro noqday weliba saldhigan qabsaday waa tani salaaman adiga riyadaada run ahaantii waa riyo fog riyo dhow maahanba waxaa kuriyoonaysay wiilkaagii inuu saldhigaan imaado weliba u qabsaday laakiin taas ma suuragelayso macquulna maahan anoo joogo weliba laakiin qalbigaaga ku ducayso oo keliya inay dhacdo wax dhici kara ma baahna waan la socdaaya
laakiin riyadaada taliya qaranku ma ahan mid qof keliya uu leeyahay weliba uu leexsay teeda kale inankayga inuu askari noqdaa weliba sarkaala taasi waxay ku xidhantay dadaalkiisa iyo isaga kartadiisa fursad qura haddii uu helo waxaan hubaa inuu darayskan ka soo baxayo waajibaadka loogu aaminay dadka qaar oo darayska iska xidhan oo iska baastaynaya ma hadde oo meelahaas kaga jabanaya dadka qaar sharafta darayska mama garanayaanba keliya qadada iskaga sugaan meeshana loo soo bariis doontaa walaalka waa ku daarayaa khatar waaya dhuuq adna wadurya adna waa daaraha bushkushka walaalka maxaa kugu dhacay ani qoladoo burcada ayaan jibto waxaan rabaa in liiga celiyo booliska dib sheegtidna soo baxay booliska dacweyna sabab booliska maxaa laga doonaya sheeg booliska abaamo maya looma baahno boolisku waa daciif waxbana kama qaban kara arrintan idinka looma baahno boolis iyo waxyaabahaas inaad ku laakiin xirtaan anugu maxaa sameeynaa haddii aabbaha oo boolis waxaa iska qaban karin aniga mid ayaan ku hayaa taasoo ah inaan anaga shanteena gacmood wax ugu qabanno nimayse shantaada kaa reebi sharci kaama reebaa bas laakiin ninkaasay ku aadinaa iyo akhri warqadda adiga video ayaan ka hayaa sharaftaadii karaamada haddaad jeceshahay guriga beerta waa inaad iigu timaadaa midda kale arrintaa booliska ku wargelin haddii aad boolis ku wargelisid magaaladu idil way wada qarxisaa marka waa kuu dignin keligaa iga yimow cidna ha soo wadan booliskana ha u sheegin arrinteena okay maya middan mid la qaadan kara iyo mid la aqbali kara toona maahan dafarkaas waa in wax laga qabtaa adigaa ka welweli soco adigana qaybta kala diyaarin dhegaysta dhammaanteen si wada jira ayaan u wada shaqaynaynaa waxaana waajib naga saaran yahay inaan sumcaddeena iyo sharafteena aan difaacno sababtoo ah gabadha sumcaddeeda ayaa baxar ku jirta okay tixraaca warqadan iyo sawiradan ayaan tixraacaynaa war unugu mana taqaanaa ganacsado waaweyn baana martaasa adigu waxaa rabtaa dabdaheen inaad tursato ununta maa saastaa yeeleyno haddaan kaa yeelna leemo toma walaalo waa ku tong gaarbutesna warsnimada si fiican ii maqlo mar damba khaladkan oo kale ha ku laabanina dadkan rikaataa ku qabsanin waad fahanteen soo ma haddii kale waad mahadsantahay maya tan waajib saarnayd teeda kale bulshada ay gacmaha isqabsatay wax qabsatay walba waxaad iga martay calooshiya weynaadka ma qaadi karo ama timaadi durdada haa adaan ku xiisi waxaan rabaa ani imootada inaanu ducaysid ayno ninkii kale ayaan ducaynaya ayoy ninka caanaha gaday xataa makaa fakaynaya waa u caada meeshaas is jooga ogow may waxaas my ritiroshan hartaa ritiroshan hartaa ritiroshan waa waa ku bariya waxaas waa waaye nin la'aan ma kugu dhacday ani maxaa ii dooqata fiiriba bidaara igu taalan ii jeedid miya waan isku kaadhibaya iga aamu iskeedib dhegayso naag walba ninkeeda ayaa ritkrosh u noqdaa marka saas miya saas hadday tahay warkaas dhan inta iska dhaafid macaani wixin ku keeni kaali aragaan ku dhahay haddii aragtid waa farxi sugyaa waa kana ujeeda daadir amiin xataa ma haysto okay ma haysto socdo soo labiso laaluush ma soo qaadatay laaluush ku dhahay maxaa kaa galay adiga aniga askarigan wixii rabo soo qaadaha hadduu aabba arka ka war maxaan samaynaynaa aabbaagan mas wax iga qaadaa dable la buwaaybe laakiin si waxaas ina samaysan ma ahayn shibkadaan ku dhahay aabbaaga ana kabtiisa gemaaye shibaba استغفر الله شمشي مالي كم هاي بتشيجي وجهي لا 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 دخل يدعي ابو معن يدعي بس هو دعي سنتهي لبكام حكاني يشك وين ميا انا الشغل مركي لي فيها لالوشان ديبي هذا هل وخاذها لالوشك هذه ما حكى قالي لالوشا ها سوى انا محيوا فعلي صوت السلام ور انا قبرت هذا خوا يجي حشوان كده هدي يجي حشو بس يا ويلغان كده غورغان انا كطلي ادبو تلي انا الله قوه الدي igu jiijiidiya say camal maadaama cigaarka sadoga u tahay caslaaluush qaato haddii kuweys maxkamadda way caddeene oo shaqadiisna sii wato oo faraha kala baxdin ma fahmino maxkamaddana meeshaasay ku xiran tahay وب معليش سوا نفس سؤال وب اوف هذا هو دريا halkooba igu filan maxaa jira ya akhay wiilkayga adiga laguma talagelin ayeeyo iyo aabe iyo igaar kale ayaa loogu talagalay marka u geeyay jooga ka dhacan cumriga allah u soo kuusa
كوب كفاية ما أنت صدقن كل مقلين ما تدوان كوب أنا ما لسوداهن قبلت هذا لسوداه كالي لما بقى عن كدنيا كويس تسيي له سايشك كنا ولا عبية كنا ولا قد بقينا يا هدي كاس عبيس كان أكتب جيز نسك نفتلو كفيل معبتلو هنا دي ما تدنو وديتي سيبا وانو جوكتا ها شو ما أنا أباها قصان أديك ماشي ما كان مستحلم حتى تكون قدايا هنا يا محجرة أباها بخور من ويدي فرس من صار كلب مسلا أمس أبو هرتاي أيوة رانجم درام مجوغا نقول كوكالا واي درس كاين وميلاس كريادي بقى أمس هاي عاد شغالة تملقو تلقى المكستي عاد شغالة تبحنك يوع أي يعني مش شغالة يوري أمس إن أبو إن أنت سقبت حتى هو شيء تسميها هاي بحوع هاي إن أب مرتي أي كوتي ما دي أيوة واكو سلامة مالين كست ما هنقشي واحد كسوشون ده كان عندك وكاريان يا ودودنا أنك نشكل مكون هنا أنا بور كودجي تتكسر عند سوم عندنا عاجب يعني بور مكودجي ما هذا واكو دجي حاش وينهم كودجي ولب وهريا كوجيك عمل كان واحد عليه مع بيب إيدي باي وهي هذا كذب هذه ما قرع والله فاه كجيبي أنت كلنا أنا كجيبي مريم وسوكوسا وسوكوسا أنكو ده يصير نصو هدي أنكو ده نكلم ما أنا وكذا نك كذا يسوي كذا هذه نندلو ما تلي ساوريا معاهم كذا استغفر الله أنا وين نك وكذا بدار اسمع كلها بدار دتنا اللي كل جسم عليه هذه محكى قال يشهد ما يوح ميجا قال لي هاي اسكت لا لا كان انا سيدا وافيري هذه خالي وحماتي علاك على وحمدين وحمدين مي هذه قال لي وين انك ماشي كوك هذه وعي وعي فقط مرمر وعسكيك الشبع هذه وعي ها هاد عدلوا ماشي يا خطر واحد كسد waa weekarna أهم صديق ayna nu jiga xirno niqaam xirno mooyaan wax kala ma hayno miya aamu niyo dhaqaale xirno nu kiyana kasa ishaq bixirna di samaan xitaa cidna ogaayay male war aham صديق osh qabo ma la yacni niga daa dhaqso war anigo kaliya soo soo soco way ها meel daran bay ku dhacdo shaqadan qabanay لا 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 ay tafkiisko ya يا حقو سو عرب asraba dhankeena يا taageer adiga maxaa kuugu dhacana انتي واس اركي نو intuug يا ماي 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 intuug aawas kiriyash tuug انا توق مني يا وشك انا توق مني اين وقفت والله قاعد مسؤول وعيا ولا يا ما قبطتي ها ما تيدك كذا ديك بدك انا يدك ما بكلا بحنا هذا دواء ويا باكل كان معك انا غلط اربعه كبري 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 هذه ما عندك صوتك kaal adig intee u fakaraysaa aniga baad iga fakartaa adiga maanta shaatiga maasig nagtag haa intee ka bixisane aninkii idinka maanta ma kala bixinayda dhawaadi haya meelaad u socotaan malaha haa dhaqsadee oo adiga isgidi haddana adigabo waa gaadanahay waa iga tageen intee ka bixineen iga tag ya او ايه وقتوغينا يا انوكا واسمه عدو برو على الكوس كنا كو هيسا هيسو في عنا سكو غادا هيسو قادر هوي قطرتك وصوحي ايه هاي الباك معرف فرناي ها هتيجي تك بحسها هي كل بقى كبح يا محسميه يا صحيح مال مروه استنى معاه ايش يقبل بس وجهي سؤال عرك وجهي ولا عرك لوها قال جعل ماكو كل هذيك توك قرحنا الله يا بنانو انا ما جاي توك واي بحث بوليس توك واي فكرين كوان بطي بابا هويا
وسلامتي lagaa qaaday Aha. faraxsantahay leh afka maciisa soo maajanta adigana alisi mujadido ha cumriga allah kusoo kursay waa cunina dhamaanteena aawey dadka kale xaggee aad inii sheeg banaaga leema fiirsido ama ani diib anaa u cunay okay dhib malan anigaa siina adika sii wato hey kaale adiga calool weynaad keentay caanalo aadka iska dhaafniyo oo adigana kaale madaxda meesha adiga miyaana ha aniga waay soo hadal aniga boombaleygaan ku dhedheelayaa leega xaday afduub waay miya arinta meeqa jir waa boombalaaga sheeg 10 sano ayuu jiraa boombaleyga aniga aniga waa sii baxaya waa baxay hay bombalaas aniga nasiibkayga ayaa ku xiran inaad ii keento ayaan u baahanahay sabab aan ku keena maxamed aniga waan jeclahay bombalaas nasiibkayga ayaa ku waan ogyahay in gabdhi isku hadle waay 10 bish waa inaan helo aniga nasiibkayga ayaa ku xiran waa maalinta interviewga leega qaadayo okay haddii aad aragtid qof wada isoo wac nambarkayga aan ku siinaa nambarkayga qoro 30 21 eber 6 21 eber 6 okay ana ku soo okay weel 21 eber 6 21 eber 6 waa inaan si fiican u fidiyaa nambarkaas joogso bajaaje tuuga waa helo taliye inay soo raacda ayaan u baahanahay dhaqso sugan ku raacay adiga xoog socno inta u soctaadi adiga bajaajka xoog wado kaliya inuu iga socdo uma baahni tuugaas aniga jooji adiga meeshan halkan istaag 20 rubi oo kaliya ayaad leedahay 20 rubi si la koo yartay 20 rubi oo kaliya qaado idhaaf oo kaliya la koo yartay maxay adiga gashaaniga taliye gabadhi kuusoo dacwoonaysa tuugi waa haya wuxuu joogaa xaafadda balgaariya meesha sii weymaaw inuu iga fakado uma baani si dhaqsi lagu soo cararo keliya soo soco adiga gurigeyga ahaa meeshaan adi soo soco haye waa soo soo soco keliya tuuga meeshaan uu joogaa tuuga milinka soo galiya la sheego haya naagtay anaa tuuga soo raadinayo waa haya tuuga waa kana yaabay tuuga tuug ayaa guriga soo gala dhinaca magareeriya hay waa igumtiimo hay ii bane abi ninkaygi tuug ayaa soo gala anigu waan baqaya madaxa xanuma tuug haddaan maqlo sidee madaxa mee daabkaaga soo kharsa baxaan ku dhahay baa intas tuuga xadin bax dahabkayga sidee yaala soo khariyaan ku dhahay baxna anaa kugu taale inankayga tuug ayaa soo gala anigu waan baqaya maxaa tuuga u tagi aroosne waa ku tuuga waa ilima ku gawadiye bax inteen ka qabaha adigana guriga maxaa ka dhex samaynaysaa hooyo gabadhan guriga soo gashay gabadhaydu tuug waaye may micnahayga tuug ayaa guriga soo gala tuuga adig kaale ninkayga ma waalatana gabadhan guriga dhan ku wareegsan samay tuug leetaa iyada leh iyada tuugay raadiyo soo hay adaa ninkaaga aad tiri macnaa tuug iska dhig guriga soo gal fikraddaas oo ogaay aniga ka artiistaad tahay adiga tuug ma jiraan ku dhahay adiga ninkaaga waay waa fikrad wanaagsan hadda kadib waan ku dhaqaaqaya aniga taas maa ku dhaqaaqay codka din camal ama iiflay tuugtaay cawdan waaba ka shakiiba aniga kastuumayaalkay aruur soo saa ma leha ka baxday nin aniga khatarsan ma jiraan ku dhahay hooshii lay diro laablaab lama jirto toosan qabaa toos maxaa waa dhulkan kale يا قبطان دي أركت بسوا شيء أنا بعرف جرتها مركي أنا نون تلي باي يا توق واكنا توق عالي توق واكنا عالي ورتوق بلا برسل سوق سوداوي توق شاي عبكالي أنا قال أركي توق أنت يوجوك أنت بيجوك أيه كالي سوق هذا أنت أنا زوج هاي صبح نوت أنت كرادين هنا وابكو هيا ما تيجي ما بحكي يا جماعة أو فملكي واكنا توك أو أسكري واكنا وهاي ما ما بحسنا يعني أذيك سلمت إذا ينكربا إسي توك واكنا كاري ماذا أذيك ما صانو كليا ينكوجو كينا توك يا صاحب كل سبب توصل خاتم حيتين سلمت إذا سبب توصل خاتم إيشك إنا نقدر يا نبهنا أذيك يا ساقات سلمت واكنا توك وأسق سلمت إذا صاحب هذا واكنا أسق يا ساقات gabadhii adiga ma walatay kan waa wiilkayga tuug maahan sidaad u hadlaysaa kan waa aniga wiilkayga mana ahan inaad burcad ku tilmaanto adigana fikirkaas waad ku qaldan tahay sidaad ugu tilmaami kartaa wiilkayga burcad
walaale ku xiro kabaha ku xiro ay horta waxa waaye qalad badanan anigu galay qaladkaasoo ah inaan adiga nolol kugu sii daay muga hore waa kuu digay laakiinse way ku soo laabatay anigaad igu soo laabatay wasiiraha dhihin gaashaalaha dhihin ra-iisul wasaaraha dhihin iyo ka dhan wayga leexleexda adiguse gardaracadaad warkayga ku gudbisay waa eqayaanta qaa'inul waddanna aniga ii noolaamayo waa qasacdaya iga habartay weligayba saasaan haa berigana wayse kaa baxaara xabadsamale way iska dulqaadeen أنا أقانا وبحيث سميها عدي يامن بين إني شيء وأركي دونتي واحد دونتي سميه كنت زيادة يوري أكتن كرة إذا نماس هذه قدام حد كخبانا سايشة نينكا يجي على مين تنسميه على مين تو كالا يا نينكا نيجي علي نينكا نينكا قدو سوقلي أنا نما مصوع سكوريا نعلا كوتا على وين كنا تيك موت وتا كالي أنا كيف كسلي هاي كالي بعافية كالي وريا كالي يعني عم ضرب أو كبريا أو كبريا مرة نكتير خشخشاني مياه مرة ما قشاده أو كبريا وأكو دبا أكو ده يا محسن ويا كان أيوة قشقش هذا ها جوك باري جوك أنا قلنا كوا دل هاي ما يدلني يا أخي أذيك إنا سانجس وتهمهوجين أنا بروي حتى بلاوت بركاga lagu waceliya shaqadan waa soo gelaysaa ka cabsani ya ani geed gogoyo lambu imaade nina iga soo horbaxay waa waagi hayle ninka maxasada shaqada ku soo naqa shaqada din ku soo noqdo usaka baxa balan waay ani banankan u dhiga ninkan dawladtay fursad way ka faa'iideysa abo ani boolisan ay mutawri anagtay hay darkan hadii uu aragtay okay mo darka horta uribe هذا إنه كوسا شيرة يا أنا shir awriya kali darkan ma dakhilni adiga أنا جو حنا مني إن نضرب هني ما أنا مهلم بوا من سكت انت waay mubani miha sida hore ma imelowsa dhigtan ka dhawa wariya farabuti adoogaga waa ibote jir laakiin maanta ma ibote hay waa kol khamaadoodhan kul majuujiya waxaan ku marmarojina nagtiya tasiira waan ku yeela soc xagga tag socog imaw ka bacdi sulud isar socan ku dheh askari daacadan ahay day baawurka day nyaanyuurkaadi hays camal isku wareejiye kali kafay ii keen inti ka imahaya dhaqso سمانتا كو دوريا انا بلوني يجي لي عامس اه دي كعرسه هبرتي هامبيه دي والله دخان يدي هذيك مش بدلست ارد نركب حتى بافك فريسو صح هو يا ابو على كوتال هاي سلام أنا جابها وما بشيء بعدين أنا توج وحي حراتها أبا عندي سو حكم مقود داعد فمل كاغودنا واداعد ديال أديك لكن وحتى قائنك وين يجرجس توج حافظنا أديك اللي بواي اتكلم أبا همبو أديك واحد سكمل لكن العقل لوتا أديك ورك بدنا جزء يكون أبا وين كوش يعني ما صورة قال ما المدرس ما نقبل كراني أبنا الله شو خلت مكان إذا ما هذا إذا وجدا هايو أمس وقطوغا ولا لورال نق هاي شيء بس هو إذا ما هو إذا ما بس وقبريا هو إذا هاي شيء نوكلي أكيد ويا موتور صوف المركون ما مفولة موتور وادي دسمة ويا هايو ما واحد ربطوا سمينا رالها فيلم كان وحلو ترجم رجل كيبل تي في مقدش يا قبل سنة كان وهلا بويلش إني موتر رعاني مروسا شكلت وحلا صوبيا إنه ملها ها wax kasta hooyooyinkooda abooyinkooda ayaa ka dambeyn raali ugu yihiin adiga halkan maxaad igu celisana aniga interviewgu way dhaafaya adiga waxaad ka fikiraysaa bambalahaagii soo mahante okay waa kaas xaga fiiri adiga waad mahadsan tahay ماما warku salaam saxibka runtii adi shaqo fiican aa qabatay boolisku wax ay sanooyinka hor ay qaban waayeen aa adi qabat ma aqaan waxaan ku mahad celiyahay qatara saataan ku اوكي دعيسه بالورت بالكم مع السلامه adiga maxaad ku fikiraysaa sheeg bal kulay aniga waxaan ka fikirahay inaan garab ku siiyo maadaama maanta maalintii afterfield ay tahay ma fahmo aniga maxaa dhaxay maxaad fahmi weyn hadalkayga meel ayuu leeyahay kulay inaad dareemi kartana waa ila tahay iska daa laakiin adiga waxaan waxba kama fahmaysa okay okay igaraal noqadigan laakiin hadalkaaga inaan fahmayno kaliya aan ku sheegaya okay
wadhowa aad iyo aad mahaantii aniga aad ayaan ugu faraxsanahay inaan dalkeena maalgashi ku samayso taasna farxaddeeda mid la soo koobi kara maahan wax walba ay ahaataa waan kugu faanaa aniga aadaad waasatay aad iyo aad dhowahay fadhiisan hadda ii waran wasiiro sidee tahay xaaladda ayada meel dhex ayaad maraysaa teeda kale aniga haddaan awoodi lahaa waxaanoo idin inaan qabto waan qaba lahaa balse aniga awooddeeda ma leh awoodda keliya waa in dhaqaale la helaa anina dhaqaale fara badan ma hayo dhibaatadana may taas wax weyn maaha wax kasta waa la samayn karaa dhibaatana ma lahan laakiin arrin ka muhiimsan ayaa jirta taasoo ah burcadda dhibaatadooda ayaga way soo laalaabatay in badan campbell faylka hobal feelashan waa feelashii aan ka soo diyaariyey qoladii kontrabaanka iibinaysay dal iyo dibadba waxyaabay ugu talagaleen bal arag adugu waa dad aan innaba caadahayn wax walba ayaa ku cad waxaa loo baahanya waddanka laga qabto aniga xaqiiqatan waxaan doonayaa dadkaa in waddanka laga qabto oo dadka laga dhex saaro taasi ma la samayn karaa talow waxaan kaloon u baahanahay bulshada cudur bay ku yiin in laga qabto waa la sameynaa wax walbaad ugu baahantaha dhanka dawladda waa helaysaa waxa weeye wax walba in laga baaraan dego qorshaan ugu talagalay moogti wax walba lagu diyaarinay waxaan doonayaa in wax walba sida ugu habboon lagu qabto oo si fiican wax walba loo nidaamiyo marka adiguna waxaan doonayaa mudane wasiir inaad garab uga siiso arrinta oo aad igala shaqayso qolooyinka waa sidaa haddaba hadday sidaa tahay wax walba waan isla hagaajinaynaa aniguna ma doonayo in lablaab u yimaado wax walba waxaan doonayaa orride inay noqdaan oo sida ugu habboon lagu soxo ma garatay marka waxaan rajaynayaa wax walba sida ugu dhaqsiyaha badan inaan ku samayn doono adigana garab baan kaa soo doonan doonaa mar walba garabkaaga baahdo anigana wax walba dawladda iga baahato diyaar baan laah teeda kale aniga waxaan doonayaa hanti badan inaan geliyo saasay tahayna waxaan anigu diidanahay dalka in masuq maasuq iyo waxyaabahaas ay meesha ka sii jiraan in waxaasoo idin la bixiyo oo la saaraan u baahanay anugu si dal nadiifa waddan nadiifa awlaad nadiifa dad nadiifa loo helo dee haddii aanan aniga taas samayn bulshadeenna waxay noqonaysaa bulsho wasaqaysan oo mar walba laga faa'iidaysto madaxan la isku guliyo la iskuna diro 24 saacba mana doonayna annaga in lagula danaysto keliya mahaantii adiga waan kuu faanaa anigaba sidoo kale waxaan kaloo doonayaa niyo inaan anigu hagaajiyo magac ahaan dhisma ahaan dhaqaale ahaan iyo ciidan ahaan intaba waayo booliska tayadiisu aad bay u liidataa haddii aanan booliska faraha lala gelin oo dhaqaalada la hagaajin wax ma hagaagayaan waan ku faraxsanahay aad iyo aad mahadsanid inay sudriga uma la sacbaa waa salaamantihiin horta carfaantaydi aye waan kaa qaaday aniga walaal wax walba waan diyaariyey hadda waxaan rabaa inaan iska sii baashaalo aan baxo waan sii baxayaa marka aqaligaa maatee ahaa abukaataha booliska wax walba adigay kula joogaan oo alba way dhammaystiran yihiin anigana mudan urku maxaa soo binaa noo sheeg mudan wax walba saaca kara yihiin haa aniga maxaa samaynaa wax walba isku dayn inaan samayn laakiin waa awoodi weyn anigu waxaan bala yaabana haddii aad adiga wax samayn yaa waa qofku wax sameeyey maraykanka maa looga yimid ii sheega alta waxaan idin sheegaya annaga waxaa muhiim noo ah inaan qorshahayna ku guulaysano oon saa rabno waxyeelno laakiin ninkaas fakamaayo koodkaana muhiimo u yahay inaan gacanta ku dhigo waay intii oo dhan aan rabaa inaan maamulo oo ninkaan xariifiya ii joogaan kuuri waa hey waa la qabaa صدق اقصد ابي يا واحد ما يا واحد وريا ninkaas hiliblaha 2 kiilo hilib ay iga soo qaadsaa hay ana ka soo qaada saxay maxaa u taagan tahay 2 kiilo taliyaha ayaa u baahan waa idin bariya ii sheega nina meesha lagu dilo ma aragteen waa idin bariya maxaa dhacayna war ii sheega
garab igu siiya warkaale hilmow meeshaan qofaa lagu dilay haddaad aragtay ii sheeg markhaatina ii noqoo ku baryaa weligee wax ma arkin anaa ku dhahay allama kiil hilib keenaa lagu dhaha taliyaha ku dir ams dabaa la dil hilibaa cunaysin miyaa waryaa ninkan aliino dhaqsada ninka ma aragta ii sheeg balamada kiil hilib leeg ninkaas la dil lama helaayo kiili hiliba qaada adiga gurigaaga iska tag saas hilib maba cunaba aniga hal mar aan barya fursad si dadka aan wareystay maya aamus waa ku baryaa ninka anaa raadinayo kaalay midaan ku fahansiiyo adiga booliskii arrimahan iyo caddeemaan maxaa ku gelinaya howshan howshaada maan gabreelo miskiinaa tahay gurigaaga iska joog noocee tahayna aabbaha boolis waaye familkaagoo dhan waa boolis adigana xogta booliska inaan gudbiyo ayaa diidan tahay war boolis layn boolisku waxay awood leeyihiin haba yaraatee ma jirto fadlan ha isku halaynin naftaada ka fikir doqoye aabbo aniga xanaaqa ii muujin waxba runtoo keliya ayaan sheegay runta dadka ma dishay way ka licisaa booliskana awood ma laha muddo 2 sano waxaad fahmi weysa 2 daqiiqo kuma fahmaysid booliska awood ayuu leeyahay booliska wuxuu awood leeyahay haba yaraatee ma jirto maxaa yeele hortooda ayaa wixii la doona lagu samaynayaa waxna kama qaban karaan dadkaas miyaad ii sheegaysaa wax ay qaban karaan haba yaraatee malaan booliska waana abuursaa ka horraysay anigu waxaan ku tusayaa booliska awoodda ay leeyihiin ka leex gabadhayda waa ku baryaa intaas garab igu si oo ninkaas ii sheeg anigaana soo xiraya oo yaa soo xirayo ninkaas burcadka ayaad awoodda aabba inaad soo xirta adiga waxaan iska daa aniga arrinta kuu sheegaya waayahay adiga ayaa soo qabanaya ninkaas waana ku tusayaa awoodda uu booliska leeyahay inakaxay soo bax balaayo qoorta gashay aniga fasaxaan leeyahay fasax eegleen aada asagay u taala wuxuu sameynaya aniga faraha kule ma jiro asagay u taala wuxuu sameynaya kaalaaw tug soo qaba shaarka u geli ninkan awoodda uu booliska leeyahay maanta inaan tuso ayaan rabaa gasho بوليس ماشي لو تلقى انت مع aamus booliska muhiimadda ay leeyihiin adiga marna ma garan kartid sababtoo ay baad tahay adayga dhoolatusoo wadaa ma fahanti ya xanaaq lay qabale waa kaalay qof inaad soo dishidaan misna masaajo lagu samaynayo istaag xaarayo istaag soo soco istaag war adiga warqada igu xirtamay warqad adiga noocaaga uma soo qaata aniga war adiga mii taqaanaa ii sheeg bal hal qof oo markhaati kuu naqda ma heshay meesha waa tagtay weliba aamus dilka aniga waan geystay laakiin markhaati ma heshaa maya markhaati maysid booliska oo idil way ka aamuseen maxay taa sababta adiga weli aad caddayn u raadinayso waxaa ku wanaagsan inaad iska aamusta aniga qofkaan ma taqaani qofkaan adiga waxaad ahaato aniga shaqo kuma lihi inaan ku xereeyaan halkaa hunaada inay gacanta horaan ugu sheegay laakiin yan imaqlaaye war aniga banraamayaan la shaqeeyaa wadna ka shalaynaysaa jeebadda ay igu xirto balan sida ciyaalkay ha u booteen irkowdhe markaan aniga xabsi kumaba geynayo baxsad ayaana kugu dilayaa ogow haddaan kuu sheegay gudami waxaad leedahay operation ayuu ku jiraa ramjandara ninkaas inaa xerta kuma wanaagsan adiga 4 qof ayaan kuu soo dirayaa ninkaas ku wareeji ee ka soo tag adiga ka soo tag ayaan ku dhahay soo dharaala geli taasna waa amarkayga maxaad sugaysaa laakiin taliya ninkan qof ayuu soo dilay misna gurigiisa ayuu yimid xornimadaas xagguu ka keenaya waa ku baryaa ninkan aniga abaalkiisa aan mariyo maya warkayga aan ku dhaayeel okay waaya waa kaa furaya okeede adigoo diriiska booliska ku faanaya ayaad kuleetigayga qabta balse hadda lugahayga ku tirta shaatiga aad sheegaysa dhaqso ku tirta waa aniga amarkayga amarka booliska xitaa ma ankan dhaqso ayay dhaqso maxaad sugaysaa dhaqso dhaqsoan ku dheh aha wax kale uma baahan ya alla gacantaada oo aad kuleetigayga ku qabta haddana waaye may marnaba wiil ma qaadan kara in aabihiis la gumaysto teeda kale adiga aabbay shaatigo keliyaad ka sigto laakiin adiga waa ballan inaan maqaarka kaa siiyo dareeskan awooddiisa si toosoo ma isticmaali kartaan maxaa yeele sharciga ayaa gacmahayda ka xirxiraya laakiin aniga ma jiro sharci xakameynaya aniga i celin kara inaan waxaan doono sameeyo haddana waxaan doona ayaan samaynaya waanaad arki doontaan
tilaabadan qaadi doon bartaadaa ka dhaqaaqan u sheeg biskooladaha dhiba ninkan waa inaad kaxaysataa bixir adiga waxaad ku hanjabaysaa sooma inaad sharciga ka xooggan tahay misena aad awood leedahay awooddaadu waxay gaartay sooma inaad aniga aabbay ku tiraahdo shaatigaaga lugahayga ku tirtir balse maanta haddii ay lugu kugu haraanba waxaad dhihi doontaa aabbay ku tirtir oo kuma sii deyna ha ka cabsan inaad nolosha ku sii reegto dunidan kuma sii daayaysa degdeg ayaad uga tegi doontaa taasna waa balanaan qaad adiga sooma dhin lama xiri karo laakiin xabsi xurriyad la ayaan ku siinaya nolosha muxuu kaaga dhigay yaarkeedi magaceliya feelka caawi feelka sheeg أنا كبريا قاعد وكبريا واحد وادي شيء هي كان فاربوتي أساسا run ahaantii mudane aad iyo aad ayaan kugu hambalyaynayaa aadan ugu faraxsanaa soo noqoshadaada hindi aad ku soo laabatay waana ku taageerayaa xaqiiqatan kolay wax badan ayaad ina wanaagsan baa tahay adugu laakiin aniga waxba ma qabto aabbahay waxa uu jecel yahay inaan aniga boolis noqdo laakiin aniga boolis maba ka helaba sababtoo booliska waa awood daciifa waan awoodaan waxba tiri karin marka mudane micnahaaga maan garanay asaga imtixaanka uu baas wuxuu sugaa shaqo micnaha aniga booliska nyaanyooda daciifka aniga ma jecli mogtaa aabbayaa iga daba wado war sideed ku leedahay boolisku waa daciif booliska kartidooda aad ayay u yar tahay xaqiiqda markaan kuu sheegana amniga dalka maba xasilin karaanba aniga horena war adigu niyaddaad daciif ka ti waxa weeyaan booliska intaad adigoo kale shacabka ay ku dhex jiraan horumarba ma gaarayaanba war waxaa loo baahan inaad taageerto argudmar u noqoto gaashaan u noqoto kartidaada iyo awooddaada aad iyaga ku bixido wakhtigaaga waa inaad iyaga wartaa war waxaa loo baahan yahay waddanka inaad adigu leedahay inaad garataan oo aad dhaqdhaqaaq samaysaa maahee inaad adigu dib u naxdo maaha dib u fadhiiso adeer waad mahadsantahay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay runaantii waad dhiirigelisay gabadheedu waa caadiya dhiirigelin fiicanna waad siisay runaantii waa waajib saaran waxa weeyaan dhallinyarta inay waaniyo waan ku qasbanay adeer adiga mar kale waad mahadsan tahay saddex alif leh raam chandra haddaa tahana maan iskaga tagaan kuurariyaa naftaada ayuu kaaliyaan ku iri adiga sii daa bistoolada haddaan doono isla hadeertaan ayaan kuu dhamay karaa laakiin aniga middaas ma samaynayo hadda telefon xaaskaaga u dir xaaskaaga ken halo waa saddex alif leh raam chandra ninkaaga waa nin waddankiisa iyo dadkiisa intaba khiyaanaya waan u malaynaya lacagta laaluujka uu qaadanaya inuu sidaas yeelayso laakiin lacagtaas laaluujka uu qaadanaya wiilkayga mustaqbalkiisa xaggee u dambayn doonta nolosha inuu ku sii noolaado asaga xaq uma laan waa ma aragtaa dil kow ka sii qabo waa xaaskaaga qofka amraysa in adiga lagu dilo war adigoo boolis ah ayaad annagana ceebaysay waxaad la shaqaysaa dad dalkooda iyo dadkooda intaba khiyaanayo war mala socotaa bulshada oo dhan waxay leeyihiin xad celiya mootoolaha ahaado baawurlaha ahaado xamaaliha ahaado wax walba hadduu ahaado qofka xad celina ayuu leeyahay laakiin nin boolisa xad ma lahan adiga oo kale inaad noolaata xaqumadiams wayaa horta mala socotaa aniga inkastoo aan alifla ahay adigoo boolis ah misna isbatoore ah waxaad qaban lahayd ayaan aniga qabanayaa maxay u kalifna ma taqaanaa noociina ayaa laluush qaata misna burcadda u daryeela mar walba markaan anaga qabano oon xabsiga aan keenno idinka ayaa baxsad ku tilmaamaya mise maxkamaddana ka sii daynaya middaas anaga mid aan u dulqaadan karna maaha war shicibka mala socotaa mar walba waxay isku hadlayaan booliska booliska waa saaxiibka shicibka markay shicibka seexdaan booliska ayaa u dadaalaya war mala socotaa aniga wiil markii la ii dhalay waxaa idhi wiilkayga boolis ayaan ka dhigayaa markaan soo barbaariyeyna wiilkayga waxaan idhi boolis ayaan kaa dhigayaa wuxuu yidhi aabba booliska maxay qabtaan bal ii sheeg
wiilkayga wuxuu arkay falxumada idinka aad ku socotaan iyo daacaddarrada idinka aad ku socotaan wuu u diiday inuu boolis noqdo intaasoo dhan idinka ayaa u horseeday middaas waa mid idinka lagu dayanaayo haddaad wax fiican aad samayn lahaydeen ayaguna wax fiican ayay samayn lahayn wiilkayga rajada aan ka lahaa maanta in aan ka dhiga nin ciidana tartiina ayuu u diiday anigana kalsoonidaasoo dhanna waaba ka baxay sideedaba aniga dharka ciidanka waxaan labistaa muddo 3 maalmood 3daas maalmood ayaa aniga igu wanaagsaneed oo dunida aan u jeclaan jiray balse adiga iima reebin hal maalin xataa inaan gashto igeligaarkii run ahaantii aabba waxaad i dareensiiso maanta booliiska awoodda uu leeyahay iyo kartida booliiska ku duuga teeda kale maanta wixii ka dambeeya aniga mucaaradku maahi booliiska kamana soo horjeedo waxaana diyaar u ahay inaan nin ciidana noqdo weliba isbatooro buuxo noqdo igaarkii axsanto لكشمي maxaa dhaca ninkayga ii sheeg maxaa dhici lahay waa la doorta igaarkaaga waa la khaatiis matoors dhaqaa yaani lakashmii barsaad siin lacagtaan oo idil wax halkan loo keenay sidii iskuulaad iyo goobo dadweyne wax loogu dhisi lahaa balse anaga inaan ka sii fikirna looma baahno waa inaan anaga faa'iido ka samayna taas ayaa noo wanaagsan inaad fikir fara badan isku darayso looma baahno haa lacagtaanoo nagala qaybiyo maya taas socamaysaan kuul waxoogaa baashaan in laga fikiray u baahan tahay lacagtan waa badan tahay waqti ku dhumisa looma baahno waa inaad ka faa'iidaysanaa haa lacagtan waa inaad noo kala qaybiya noo kala qaybi ana xamaaliya ahay niidibaayo waa qaada lacagta na sii boorsada irista tahay sii xamaaliya taamaano iga qabeeyo mudane hashtirigia inta ku danso gacanta haa kaala horta ashtirig waaba helaba teeda kale horta midaan rabaa inaan idiin sheego aniga waxay khiyaano waa necba halkaanna way khiyaanaya teeda kale waxaan idiin sheegaa ninkaas cirada guduudan leh qorshahan oo dhan wuxuu u sameeyey lacagtaan dhan u baxshay in hoteello isbitaallo iyo dhul dawladeed lagu dhiso iskuullo iyo saldhigyo boolisoo kalena waa rabyaa marka horta ninkaas anuka waxawaaye haddaan dilno dhibaato weynaa noo imaayso annaga haddaan wax samayno boolisaana bursado isaga laakiin ameerikaa daba socoto marka mukaan dilayno caqliyaa lagu dilaa kadib aniga haddaan xabsiga gala xataa waa u qabaan kuul ay anigaa abuukaate waxaan rabaa inaad ka fikirta hadda haddaan xabsiga gala saan ku soo bici lahay qorshayada hadda ka fikir ana mahanaan kugu sugaa haa soco fikri okay diyaar waay anaa igu og tahay wax walba anigaa dhammaynaya keliya idinka waxaad soo haleynaysaan soo haleey idinka waxaan idinka rabaa dhedhel inaysan noqon baashaan بالله دقسيت عاد دقسو may adiga hormar ninkayga أنا ما هرمرة haa orod adiga دعك لما جرت كالي قركي هم بليون كله ما يسرق قل ننعس فرة ننعس in booliiska aad ku soo biirto shuruudo fara badan ayaa ka horeeya taasna waa inaad soo buuxisaaday ma fududo inaad boolis hore ka naqo waan ogahay wax walbana waan la socdaa ninka booliska waxaa looga baahan yahay in sharciga uu ilaaliyo heerka aqoonta waa inuu b balas ka sarreeya sidoo kale waxaan ogahay jir ahaan iyo maskax ahaan inuu caafimaad qabo sidoo kale waxaan la socdaa inuu yahay nin sharciga aad u yaqaana exercise ahaanna aad ugu fiican teeda kale waxaan ogahay inaan sharciga dhowri waad mahadsantahay taliya haddaan nahay shacab weynaha hindiya waxaan u baahannahay dadna garab siiya goobo caafimaad oo lacag la'aan noo furo goobo waxbarasho na siin kara qofkaas qof kale maaha waa la kishniye barsaab ayaan ku soo dhawaynayaa maslaxa
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin waxaad ku mahadsantihiin soo dhowayntaad halkan igu soo dhowayseen teeda kale anigu xaqiiqda markaan ka hadlo laba hoyaan ley mid waa tii runta ii dhashay midna waa tii dalka hindiya dalkeenna waxaa jira dhibaatooyin fara badan oo la circirayo kuwaasoon innagoo qura aannu ka samata bixin karno waxaana ka mid ah burcadda iyo jabhadahan burcadda annaga ayay nagu dhex beerantay jabhadahana xuduudaha ayay nooga soo gudbeen sida kashmiir haddaba si aan annagu uga gudubno waxaa qasaba inaan annagu gacmaha isqabsanno oo aan aayahayaga ka wada hadalno oonu samaysanno wax walba oo horumara waxaana sidoo kale waajib ah in aanan ninka hindiyaanka aan lagu eegin hadda mabda' uu haysto balse lagu qiimeeyo waddaniyadda iyo inuu yahay muwaadin indiyaana intaas waa inta ugu habboon waxa weeye haddaad soo dhowaataan waad dhimanaysaan iminkaba hadda ninkana hadilina tartiib marka hore su'aal tartiib tartiib khudar biskoolada hoos u dhig war wax waa la xallin karayaa hal heshiiyo maya bistoolada marka hore hoos u dhig waryaha isdilne bistoolada hoos u dhig shaqadan kuu diro waa inaad qabato adiga okay waaya maxaad sugaysaa aniga wax weeye ma oggolaanayno war marka hore bistoolada hoos u deji ma dhacaysa waa kuur waryaha ha isdilin haddii kale bistoolad baan kugu dhufanayaa hadda socon maysa baan idhi waan dilayaa haddaad tallaabo soo qaadaan wuu dhimanayaa hadda silaaliya baa war waxaanu dhaafayna male gebigiinna waanu idin baabiinayna ninkannu ajashaanu dhaafayna adir waanu dilaynaa halkiinna aan noo soo dhaafina bisdaya bisdaa loo waayay bartiinaa jooga hubka dhig waa kutuuga taliya ninkaasi kale wasiirkas dila waa kutuuga dhig ya akhay ana la ahsan diidano dadka noocan oo kalaa baa dadka ku ciyaaraya oo balaayada iyo masiibada ka dhex beeraya waxa weeyaan burcad waxaa loo baahan yahay in layska qabto haddaanan layska qaban qowmiyad badan bay madaxa soo gelinayaan waxa weeyaan inaad baqataan maaha awood baad leedihin qofku wuu isdifaaci karaya karti buu leeyahay waya diyaar waa ka jirta meeshaan ya hadalaada igida abo filimkan waxaa lagu turjumay raja kebel t v muqdisho abo waxba kuma gaarayaan abo anigaa garabkaaga taagan anigaa ku badbaadinaya anigaa isbitaalku keena sida ugu dhaqsiyaa badan weliba maya isbitaal malaga gaaraya arkay bisoali keli laakiin falkaanna waxaa ka dambeeya ninkan ganshaalla isku sheegooyi waaya si waaye ooshan khabya ugu tegin igarkii ugu tegin khabya igarkii abo maya waa balan anigaa dhammaystiray laakiin adiga waa inaan isbitaalku geeya maya kabi lakashmii krishna barsaad si lama filaana ayuu booliska gacantiisa ugu baxay weliba si shil ah marka aad baan ugu xunnaa isagana waxaan in aad iyo aad u wanaagsan oo dalkan u yimid inuu maalgashi wanaagsan ku sameeyo waan ka xunnaa wixii dhacay wax walbana raalgelin baan ka bixinaynaa ninkaasa u jeedaa nin wanaagsan ayuu ahaa wuxuu dalkiisa u imaaday sidii dadkiisa wax uu qaban lahaa halkan wuxuu rabay iskuulaad iyo goobo waxbarasho inuu ka dhiso si uu dadka masaakiinta ah waxbarasho ugu sameeyo
war dib nooga baxa cid halkan u soo dhowaan karta haba yaraatee mala qofkii dhankayga u soo dhowaada waxay ogaanaya inaan gubay victoria qof ii soo dabageli kara male lakishmii krishnaa barsaad ayaa magaalada lagu dilay halka suuryaan oo ka baxsada gacanta booliiska lama ogi ilaa hadda meeshuu jaaniya cirib dhiga suuryaa maxaad aaminsantaha waa guulaysanad maa la soo taaganta waxaan guulaysano ma leh bakhtiyaasataan maxaa sameeya war arrintan hadda inaan ka fikirna maahan waxaan ka fikirayaaba arrintan dilka sida lagu xalin lahaa waa ku wareerna hanti ariya aye ii warane amadan xooga ani cabsi miya hoohe suurya ayaa ilaashanaya hadhowta suurya aniga maxaan ugu jawaaba ii sheeg adigaan kula hadlayaa war unuga hadda waxaas inaan ku doodna maahan waxaan ka fikiraynaa arrintaas sidaa ku xalin lahayn ninkaas sidaa ma nagu dhaafahay waa inaan helnaa meeshuu joogo haddii kale unugoo meeshaan noogu imaanaya halo suuryaa anigu waan ku faham xaggee joogtaa adiga aabbaha ayaa naga fogaaday haddana adiga ayaa baxsada maxaa kuugu dhacayna waan ogaa waxaan samaynaya adiga qofkaad afduubata mataqaanaana baasabor amerikaan ayay wadataa halisna waad ku geli kartaa adiga suuriya waxyaaba aad samaynaysa ma ka fikirtana baasaboorka amerikaanka taas ka dayso ogaani meesha iska sugaya ilaa aan ka ogaada dilaaga dilka aabeed ka dambeeyey aniga halkan lagama yaabo gabadhan inaan ka sii daayo waanan ogaan doonaa kale dhammaantiin maxaad ku soo raacdeen wasiir xildhibaan abuukaate iyo gobnatoore gobol dhammaantiinba waxaad ku soo raacdeen gabadhan darteed gabadhan qiimo weyn bay ku fadhidaa marka waxaa qasaba hawshan sababtaad ugu jirtaan inaan ogaado aniga dil haddii gabadhii dilaysid unug maha naga gelin noo sheeg bal anigu taas waa ma naga gelin haddaba waqti halkaa nooga lumin baa kuura hadal imaalayaan adanoo ku caliye waxaan u baahana nasiya marka hore ma wareemi abeed inuu badbaadabo aniga mugu horeba kawiyaba duqa oo aabbaheeda hay ninka kawiye aniga waa anaa ka dambeey waa qasacaday aabahe muxuu dembiyu u geystana maxuu dembiya u geystay isbitaalow dhisay iskoolow dhisaa saldhigow dhisaa waxa dhan isuga isku qoraya shalow maraykanka yimid unuga xanaa marka hal bacaad loogu lisay kuwaasaad noola soo irmayaysa amyaa inaasaa dhaaftid ninkaan inagtaan waa dilaynaa hal meelaan u diraynaa iska dhaaf abba ka cabsan kow iyo kurtuwan anaaga shibdhe ana sharba waaweyn lamadoodaba waa kaweya laakiin horta hashaan timaha rafrafka hallaan dilaa ka gadaal halkaan shaarbaha weyn laan dilaa intaanad ku fikirin ka hor waxaad ka fikirtaa bulshada hindiya sidaad uga badbaadi lahayd adiga maskaxdaada inaad ka shaqaysiiso ayaa loo baahan yahay waad iska hunqaaday adigoon weliba waxba hubsan maqane facebook live aan ku jirnaa mujadido war iga dabaasha hor u soco
tani waa khalad tan inaad samaysid looma baahna sidee ku dayaa dadkan war haddii aan dadkan xabsiga geeyo wuxuu u noqonayaa hotel 5 star oo kale way ku raaxaysanayaan way cunayaan way cabayaan cid wax ka qaadaysa male ciqaab cid marsiinaysa male markii daan ciqaab adiga suuriya inaad tan samaysid looma baahna anaga yaa dambiilayaal ku noqon karno mid ma la socota aniga aabbahay hal riyo laariyadaasna waxay ahayd anigoo CBI officer ah inuu arko laakiin muxuu arkaaba riyadiisii waxaa baabi'iyey dadkan cadowga ah ee manaxayaasha kuwan ma dhaafay aniga waan dilayaa kuwan waxay iga hor istaageen inaan sarkaal boolisa noqdo waxay ii diideen riyada aabba inaan rumeeyo aniga ma dhaafayo suuriya adiga isdeji riyadu aabbaha laha aniga ayaa garab kugu siinaya waadna gaaraysaa waa ku baryayaa marka tan iska raab tanaa samaynan wax walba aad jecesha aniga ayaa garab kugu siinaayo waan ku baryayaa isdeji oo keliya soo dhawaada horta dhammaantiina marka ugu horaysa waxaan idin leeyahay dadkan la soo xiri maanta in la xukumo xukunkoodana wax kale ma dil maahine weliba dil toogasho aan ka soo laabasho lahayn waana u qalmaan caddeen iyo markhaati iyo wax walba oo la keena maxkamadda horteeda maanta waxay caddaata kuwaan kow maahine kurtub in loo keeno qalinkan lagu jibiyo ayba noolaani yaana waa ugu mahad celinaynaa maadaama as maxkamadda iyo sharciga iyo dawladba as garab as siiyey mudana garsoore aniga waxaan u baahanahay hal su-aal inaan ku weydiiyo oo keliya codsi ayaa wataa aniga codsiga ay dambeeya war haddii rabtid inta soo kor okay waa mahadsan tahay run ahaantii mudana garsoore aniga aad ayaan u faraxsanahay daama cadaaladda la hor keenay dilayaashii aniga aabbahay dilay maanta waxaan kaloo wataa hal codsi kaloo ah in qof la dalacsiiyo waxaan rabaa in hal qof la dalacsiiyo aniga waxaan rabaa brograam run ahaantii brograamkaasna aad ayaa looga heli doonaa waa adiga hadaad iibsaxis aniga waxaan u baahanahay meel walba in kaamira lagu xiro si dilalka ka dhacaya magaalada iyo waxyaabo walba looga ogaan karo teeda kale waxaan kaloon u baahanahay aniga inaan waxyaabo kaloo fara badan halkan aan ku sameeyo waa adiga haddaad ii fasaxayso waxaan u baahanahay aniga brograam run ahaantii aad looga helay inaan keeno aniga gabartee maxkamad mashquulka dhaf warkiisha aniga waxaan u baahanahay inaan keeno wariyaasha tviyada dhammaantood ay ka wada heli doonaan brograamkaasoo ah brograam aad looga heli doono inaan keeno ayaan rabaa garsoore adiga keliya ayaana ii fasixi kara inaan barnaamijkaas sameeyo madaxweyne xildhibaano dhammaan baarlamaanka xeraalyaasha qaranka dhammaantiin waan idin wada salaamay run ahaantii aniga aad ayaan ugu faraxsanahay maanta inaan hortiina soo istaago waxaan rabaa inaan shakhsiyaddeeda iskiin buro aniga waxaan ahay sanjinaha krishnaha barsaab siin run ahaantii aniga waxaan ahay titooreysa buuxda aabbahay krishnaha barsaab wuxuu jeclaa dalkiisa asaga wuxuu ku noolaa dalka maraykanka wuxuuna ahaa nin aad u wanaagsan bulshaweynta dalka maraykanka ku noolna run ahaantii aabbahay aad ayay u jeclaan laakiin si lama filaana dalka hindiya ayuu ugu soo wareegsaday arxanlaabiyaalna way dileen aabbahay aniga aabbahay riyadiisa wuxuu ahaa dalka hindiya inuu wax fara badan u qabto laakiin asaga si lama filaana ayaa lagu dilay aniga waxaan rabaa maanta inaan idinka codsado hal codsi oo keliya aniga waxaan u baahanahay aabbahay riyooyinkiisa inaan rumeeyo taasi laakiin waxaa garab igu sii karo waa idinka aniga waxaan rabaa wax weliba oo aabbahay jeclaa inaan aniga rumeeyo aabbahay asaga wuxuu jeclaa dalkiisa hindiya inuu mar walba hormariyo dadka masaakiintaana uu siiyo waxbarasho isbitaallona uu u furo xarumo boliisoo fara badanna uu u sameeyo laakiin gabadheeda adiga habeenkii habeen lu ahaanaa maalinna maalin wax isbeddel ma leh dalkan weligii sidaanu ahaanaa wax isbeddel ah kama dhacayo
ها gabadheedu wax isbedela kama dhaca dalkan anaga saa ognahay Australia marka hore iyada waxay aad dhul saxaraa haddana waa magaalo waad u jeedaan waxyaabaha ay leedahay kheyraad fara badan iyada way leedahay hindiyana sidaas oo kale way noqon kartaa iyada haddii dadkeeda laakiin sidaan u niyad jabsan yihiin wax isbedel ay keeni karta ma lahan isbedel walbana idinkoo keliya ayaa samayn kara aniga waxaan u baahanahay garab inaad siisaan oo keliya waxaan rabaa inaan dalkan horumariyo wax walbana idinkoo keliya ayaa garab igu siin karo mudanayaal iyo marweyn aniga waxaan u baahanahay arrintan inaan si xaqiiqa leh uga hadalno dhab ahaantii gabadhan waa inaan garab siinaa cadaaladda waa inaan soo saarnaa waxaa jira dad fara badan oo xaqooda aasan yahay waxaana qasaba qof walba inuu afka ka hadlo arrintan qof walba haddii uu ka hadlo waxaa dhacaysa in bulshadoo idin ay isku calolfayobaato aniga dilyaashii aabbahay dili waa la soo qabtay laakiin weli aniga laygagama cadgoynin aniga waxaan u baahanahay wax walba oo dalkan ku horumari karay inaan sameey idinkoo keliya ayaa garab igu siin karo waxaan rabaa dhammaantiin inaad garab isiisaan oo dhinaceyga aad noqotaan aniga aabbahay riyadiisa waxaan u baahanahay inaan rumeeyo riyadiisana adinkoo keliya ayaa garab igu siin kara aniga qof kale oo garab igu siin karta haba yaraatee ma jirto aniga waxaan u baahanahay dalkan hindiya inaan horumariyo wax walbana garabka igu sii karta waa idinka aniga waxaan rabaa aabbahay inaan u argudo waxaan rabaa aabbahay xaqiisa inaan u soo dhiciyo aniga waxaan u baahanahay aabbahay wuuriyooda waxaan u baahanahay riyadiisa inaan rumeeyo cidda riyadiisa ila rumayn kartana waa idinka oo keliya aniga waxaan rabaa aabbahay riyaduu ka tegay inaan rumeeyo aabbahay uu dhinta haddama noolo riyadiisa inaan aniga rumeeyo ayaan u baahanahay idinkoo keliya ayaa garab igu siin karo aniga waxaan u baahanahay suuryaana inuu garab isiiyo haddii aad idinka ii fasaxdaan waa qofka keliya oo aniga garabkii siin kara cadaaladda aabbahayna soo dhicin kara suuryaa waa qofka keliya hadda garabkiigu sii diliyaasha aabbahay in la soo qabto qof kastoo dembi galo in la dilo waayo marka in la dhigaalsado maahan baa la iska dilo hadduu wasiir yahay hadduu wax walba yahayba khalad buu galay hadda waa la dilayaa kow baa laga siinayaa cidduu doonaba ha noqdo sarkaal ba hadduu noqdo ilaa khaladka saa ku dhacay cimriga allah soo kuusan ku dhe kuwaas camal weligay ma arkin saas dad u ba'sahayaan qof walba oo dembi ka gala dalkan waa in la dilaa maxaa yeelay dembi fara badan ayaa dalkan ka dhacaya mar walbana dadka xaqooda ayaa lagu tumanaya taasna macquul maahan da waxaa qasaba dembiilaha in la toogto ma ahan in wakti kale lagu dhumiyo hadda ha la toogto unugu waxaa rabnaa ninkaas in usdhaan gebidiisa la dilo shareefteey waxaan jecelsanahay dadkaas in lagu qaaji joogo waaba la hukumee hala dilo la dhiman isiyo dila dheh dila war walaalayaal aniga waxaan isleeyahay nimankaas lama dili karo waxyaabo fara badan baa nooga imaan kara haddii lagu fududaado ama dhib naaga imaada wax walba ayaa dhici kara ileeni arrintaas waa dad dawladda hadda warcaddan waxay ta timid hoontoon haa haltaasay ta socotaa hadda maxkamadda ayaa markii hore go'aan gaartay go'aankaasoo ahaa in dinta hoogshaa lagu fuliyo dadkaasi balse ilaa iyo haatan waxaa laga dhowr sugayaa in lagu fulin doonay in kale dadka ayaa ku kala qaybsamay fikirkan dadka qaar waxay aaminsan yihiin in la doogto halka dadka qaarna ay ka soo horjeedaan annaga waxaan wacad ku maraynaa annaga waxaan wacad ku maraynaa inaan sharciga u hoggaansanaan doonno inaan annaga sharciga u hoggaansanaan doonno oo aan marnaba sharciga jebinayn wacad waxaan ku maraynaa dalkeenna iyo dadkeennaba inaan khiyaano wacad waxaan ku maraynaa dalkeenna iyo dadkeenna inaan khiyaanin waa ballan sharciga inaan marnaba khiyaani doonin waa ballan inaan sharciga marnaba khiyaani doonin waxaa kaloo ballama wixii waddankeena dhibaato ku ah inaan dusha u dhiganno waxaa kaloo ballanna wixii waddankeena dhibaato ku ah inaan dusha u dhiganno waxaa kaloo ballama waddankeenna inaan hormari doono waxaa kaloo ballan inaan waddankeena hormarin doono mas-uuliyad walbana ka soo bixi doono waan ku dhaaranaynaa adiga wiilkaada waxaad jecleed gaashaanle oo keliya inuu noqdo balse mas-uuliyadkii weyn ayuu dusha saartay wuxuu kaloo noqday nin dalkoo dhan maamulo ninkayga anigana aad ayaan u faraxsanaa maanta runaantii aniga aabbey aad ayaan ugu xiisaayaa haddaad doonaysid adugu inaad wax wanaagsan samaydo ma aha inaad labalabaysaa go'aan waxaad ku gaartaa inaad dhaqaaq samayso kadibna wax walba way kuu qurux badnaanayaan anigaa kuuri middaas haa si niyadoo keliya u samee isna deji okey
duqdaanoo katiyo kaduuda tikii lagu dhimahay le sugaysa aniga lugtay ii saartay laakiin ballan way toon ku dhigay mar dambe iidaa musqul gelin dadaan yeerihaasug wax kale ma ku dhimaysa maasang meesha u dhigaa todoba ber inay haarinaan tusaa meesha le ay fadhisa shubka dhe adiga duqdaan aadan la aadaha markay khalashay dhimayay hay suuriyaa ma joogaana suuriya ayaan u baahnaa waa maasan tahay aniga adiga ku imaan wax walba gacabsanaysid iska fiiri haye hal mare laabta ii geliya diyaar waay waa kan عمل للسكو هو يا مالين عديه للسكو يا كان ولمات مسكيك نين إناغا شمية لكن ورنت دي واي سك أنك دمي هذيك لو ولا دميسها هاي بس محاجرة منوجي سدو نوج مجرى يا مسبحة चल बस करना आई waa maxay waxaanu ciidana kuwaani waa sukuuradka iyo ciidamada qaaska ee marwada ilaalo u noqon doona maxaa keenay intanoo ciidan inay marwada ilaaliyaan sababtoo ah waxaa jira ciidamo kooban waxaanoo miisaaniyada maxaa lagu khasaaranayaa istaafkan maya looma baahna middaas keliya anigaaba ku filan mudan ammaanka aad ayuu xun yahay waa qasab in lagu ilaaliyo no way go'aankan markii aan hore u gaarayey kama aanan fikiraynin inaan keligay ahay inaan koox haysto intaba laakiin waxaan ku fikiray inaan aniga kalsooni nafteeda ku qaba maantana isla kalsoonida ayaan ku qabaa sababtoo ah istaafka faraha badan leh dhibaato ayaa ka imaan karta waana caqabadda ugu badanba kaal adeeg waxaana sukuurad adeeg maxaa ku fashaa sukuuradka haa sukuuradka aan ku weydiinay anaa kuu sheegaay eeyeyga waay unay daba socdaan leen u socdaabo haa sukuuradka haddii la waayo eeyahaan xaggee la sameeya kubaa eeyaa baana leedahay haatan baa kaa tegaynaa haddii eeyana anuka kaale idinkaa tegina maxaa jira ey mitihin bilaadanaatiin kaale waa waca booliska u sheegaa halo haa ciidanaa rabaa ani waa leega tegi haddii aad aragtaan qof halisa ama nafsadiina dhibaato ku ah looma baahna inaad labalabaysaan keliya hal mid ayaad samaynaysaan idinkoon boolis wicin cid kale u dacwoon anigoo qura ayaad soo wacisaan waxaana wacad ku maraya isla qofkaas inaan arrintiisa xalin doono lama xerayo lama jajoobayo keliya ciqaabtiisa ayaa si toosa loo marsiinayaa isla goobtuu taagan ayaan ciqaabtiisa lagu marsiinaya waxaana idiin sheegayaa nambarkayga eber 647 walaal meesha maxaa noogu cad noo sheegba shaqaan ila dirsaa shaqo yaa shaqa qabaysi horta waxaa ku weydiiyaa shaqada nooci waxaan gaadha maa lagu dhacaa moota maa lagu dhacaa mise bajaaja lagu dhacaa mise baskil waxa noo dalbaadan wax walba naga sameyna okay noo sheeg lahayd wax dhacoole shaqadeena tahay wax kale ma qabano unuka ama fahmino haddii wax noo dirsatay ku dhahay ka tarbiil xataa waa ku keenina ababa dilow haddee noqoto waa lagu dilahan ku dhahay meeqa qofaa la dilay mataqaanaa nus milyan dadaa iguma qabo wixii rabtid noo sheeg waa kuu qabahaynaa unuka kufsa haddii naqatana unukaa joognaa gabadhkii rabtid sheeg anaa soo kufsaay dahab xadoo xitaa unuka aqaan noo sheeg leh malimaan idinka shaqayaan ila dirsanaya shaqadaas ayaad qabanaysaan lacagtana waad qaadanaysaan wara cabduuli aan sheekada muu bogaya wara xum waad sheekada muu bogay wax kale qorshe weyn waa lacag la keenaya see camal dhibku weys maxaa beesadaas qaadayna saxiixno saas miya cabduuli maalmaa lacag meel mogtaan hadda saxiixa cabdul saarula qaalaan saxiix maqan ما معقل ay shaqano
qabeynaa noo adiga sheego maanta laga bilaabo dil kufsi dhacow kulli waa laga xarantiinumay wax aad samayn kartaa way yaraatee ma jirto sabab maxaan samayn karin adiga nafsadaadoo dhan annaga ayaa gacanta naga saartay wax aad samayn kartama haddaan ku dilana cid noo haysatana ma lahan waan ku dili karnaa adiga meesha anigu waxaan oo wacnaa qiyaadid miya wara waxa magaca ka dambeeyay Abdulle hadda waxa miira warqadaadi soo celi hadii kale waa idan cajiib ma ku dheh tada anaga mas'uulka kama hadli kartid hadii lagu dili xitaa cid noo qabsan karta ma lahan anaga waana ku dili karnaa tabarta ma ku dile wax aad geysan kartaa way yaraatee ma lahan adiga adan ka bilaaba anagu taas ma yeelayna hadii kale wax kale ma joojiyayna ma yeelayna صاحب كامل والنبي عملوا كبي isku day inaad hadalkayga fahantid ficil intaan wax kugu fahansiin lahaa inaad faaladayda fahanta ayaa ku habboon cunaka dukaanka xataa waa saaxiib qof walba oo khalad gala ciqaabtiisuu maraya waa qayaano haddii awaani maba saxiixinaanba yaa ku weydiiyey middaas teeda kale adigii lacagta markaad qaadanayso waad qoslaysa soo maa hadda go'aankan markii laguu soo dejiyana waa kula xumaatay qof walba oo halkan jooga nafsadiisa annaga ayaa mas-uulka ah uma baahni in wax la dhaco uma baahni in wax la kufsado waxaan u baahanahay xog walba iyo information walba ina sida ugu dhaqsiyaha badan lagagu soo gudbiyo weliba 5 second gudahood qof walba qof kale ayaa mas-uulka ah qof walbana qof ayaa daba socda ninkii si wanaagsan u shaqaysan waaya wax ma dhicini mi maya hawshin waa dhamaysan okay haddaba dad yahow waa inaad waajibaadkiina gudataan hadalkaygna si fiican u fahma qof walba oo khalad gala ciqaabtiisa sidoo loo maraya weelan kala socodlooya waxaan ujeedaa qolo kotorban wado weliba kotorbanka koola badan ku jira weliba naan wax naan subadna weliba darooga xataa waa la wadaa kaaliska arag markii la hadalana way diideen aniga waxaan ahay iska daa ayaan ku dhahay bella magaceegaaba beelaabo هذا وعواني هذه لكن رجع مكيني sidaan u jarjaranayo soo ma jeedid kalarka waa kalarka hindiya sidaas ayaan ku jeclaaday maxaan saxiixa iidaam inaa isku saxiixa rabaaba iyada dhan lamadaba isku darso idna saxiix kana saxiix okay waay markii hore 200 aan kula rabi laakiin hadda 500 oo kunan ku siiya qatar waay iid darteed la waay mo ababo kan baban waay nacla idinku anigu hadiidaartanya hantida dawladda inaad kala qaybsataan tag xayawaan iyo xayawaanka kala jira halkan maxaa ka dhacay ii sheeg ba anigoo maqlaaya ayay rabaan hantida dawladda inay kala qaybsataan waa niman soo dhigta oo xaaraan cunayaala waxay cunaan oo keliya ayaa ka maqan wax kale ka maqan malan xayawaanadan xabsiga gey ayagaa ku fiican xabsigee ay sharba weyne waxaad go-aan ku gaartay soo maa xoolaa dawladda inaad dhacdo soo soc filimkan waxaa lagu turjumay raja cable tv muqdisho waxaanaad aragtaan waa falaash falaashkan kamarada ayaa ku xihan kamaradana waxay duubaysaa wax walba oo khalad oo dhacay qof walba oo khalad gala ha noqdo wasiir ha noqdo ra-iisul wasaare ama ha noqdo madaxweyne ama ha noqdo xildhibaan ama barsaab cidduu doonaba ha noqdee waxaa waajib iga saaran yahay inaan ciqaabtiisa marsiiyo qof aan ka xishoonaya habeeraatee ma jiro xisbiguu doona ha ka tirsanaado xisbiguu doono ha noqdo qoladuu doono ha ka tirsanaado golaha wasiirada hadduu doono ha noqdo golaha baarlamaanka ha noqdo hadduu doono laakiin mid walba wuxuu ogaanayaa in ciqaab uu marayo haddii uu dable yahay haddii uu sarkaal yahay waa isku mid ma jiro digniin ma jirto xabsi sidoo kale maxkamad laysma geynayo ciqaab oo keliya ayaa laismarsiinaya waa la isciqaabaya adiga aabbaha iyo aniga aabbahay waxay hayeen laba ruuxoo daacada dhammaan dawladdoo idinna indhaha ayay ka daawanayeen gacmahana way ka laabteen aniga mooye cid kaleoo dhaqdhaqaaq samaysaaba eraatee ma jirto kolley wax walba way cad yihiin annagana wuxuu waajib naga saaran yahan waalidiinteenna fariinteenna fareen taasoo ah inaan dalkeenna iyo dadkeenna daacad u noqon inaan fulin waa qasab qalbiyadooda ayaa ku qaboobaya wax walboon annaga samaynayn waxaan u samaynaynaa waajibaadka waalidiinteenna unaga gudanna dalkan waxaa ka jirta dhibaatooyin fara badan sida dil dhac boob iyo kufsi intooda fara badanna waxaa sameeya dadka dawladda xubnaha muhiimkaa ka haysta tuug walba oo aad qabataa wuxuu xiri la leeyahay wasiir walba wax khaldaana wuxuu xiri la leeyahay ra-iisul wasaare sidaas ayay isugu xirxirayiin ra-iisul wasaare walbaana wuxuu leeyahay golo xildhibaanaha kuwaasoo difaacaya markii mooshin ama dhibaato laga keeno laakiin annaga marnaba maahan inaan taasu joojino ama aan ka aamusno
sarkaalkii khalad galaa ciqaabtiisa la marsiinaya wasiirkii khalad galaa sidoo kale ciqaabtiisa la marsiinaya xildhibaankii khalad galaana sidoo kale ciqaabtiisa la marsiinaya shacabkii khalad galaana sidoo kale ciqaabtiisa la marsiinaya ma jirto wax maxkamada ma jiro wax saldhiga sidoo kale waxaan jirin wax digniina qof aan u digayna ma lahan qof wax loo sheegaya ma laha qof walba waa uu ogyahay sharciga nidaamkeena dhowr qofkii ruux dumar ku xadgudbaa xaqiisa la marsiinaya kaasoo ah inuu dhintaa qofkii wax dhacaa waxaa lagu qasbayaa in la garaaco ama ciqaabtiisa mid adag laga dhigo qofkii qof dilaa isna waa la dilayaa isla bartuu qofka ku dilayaa lagu dilayaa sababtoo ah dilaagu marnaba dadka ma daynaya dhiigii cabayuu noqdo dadka haddii uu ku dhiig bartana dhibkiisu waa uu sii siyaadayaa annagana waxaa naga go'an inaan annaga shacabkeenna aan difaacno u taagnaanno hadafkeenna mowqifkayga oo ahaado inaan dalkayga dadkayga difaaco adigana kollay taas tu la mida ayaan kaa fura dhammaantiin booliskiina waxaan idin farayaa qalad qofkaad ku qabataan inaanad untu xinjixin ee waa in si toosa ciqaabtiisa loo marsiiyaa qofna kama oggolaanayno inuu xaqayga ku tunto qofna kama oggolaanayno inuu annaga nabah dilo sababtoo ah annaga waxaan nahay dad awood leh booliska waa awoodda shacabka uu ku tiirsan yahay haddii boolis uusan jirin shacabku nabadgelyo maysan heleen haddaba waa inaad muujisaan kartida iyo awoodda ay leeyihiin dharka aad xidhantihiin ciddaad hadal ka dhegaysanaysaan ma jirto oon anigii ahayn qofkii aan amar siiyaana waxaa qasaba si toos inuu fuliyo dibnaha sokeeya kaale adiga ilaa in muddo ayaan ku raadinaya waxaanan ku baadigoobaya muddo aad u dheer maanta ugu dambayntii gacanta ayaan kugu dhigay ciqaabtaadana waan ku marsiinayaa khalad ayaad gashay waxaad geeridiisa ka dambaysay xubin aad iyo aad muhiim ugu ah waddanka hindiya adigana waxaad tahay nin duulaan ku ah dalweynaha indiya sidaas darteed waa inaan dhulka kugu daraa xaq uma lihid nolosha xaqna uma lihid inaad duniyadan dusheeda aad ka sii ceeshto baybay nabadgeli indiya ciddii khalad ka gashaa cise iyo karaamo agteeda kumaan waxaa balana ciqaab inaan marsiiyo qof walba oo khalad naga gala feelasha keena haa mudan amarna sii dhammaan tuugadan annaga ayaan soo dilayna maxaad ku samaynaysaa ii sheeg bal waan dilaynaa dhammaantood oh waa si wanaagsan haddaba looma baahna dadkan in la ciqaabo in xabsi la geeyo in maxkamad la saaro intaba keliya waxaa loo baahan yahay bistooladda xabadaha ku jira in jirkooda lagu faarujiyo dibna inaad u laababataan looma baahna taliya micnaaga hala dila miya tuugada markay annaga naga hor yimaadaan miyay noo naxan mise noo naxariistaan ii sheeg bal maxaa keenaya gacanta booliska inay dib u laabato maxaa keenaya gacanta booliska inay cabsi keento waa qasab go'aanka inaan annaga gaarno sababtoo ah marka ugu horraysaba xabadda annagaa isku dhigayna uninka qoryaan waxaana loo dhiibi markiin askarta soo galayna halkoo xabad xijaaba ku jirto weligii xabad ma gerinin haddana askariyan caahayaa lagu leeyahay waa nala soo weeraraa ununka leena la dhameeyaha qorya waa kana waa isku wadayna waxna maku adeegi karno dad maku dili karno dambiilaha maku qaban karno xabsiga maka celi karno wixii la rabo leena ugu sameynaa maanta waa ku tuugayna qoryan noo fasax taliya wax qaldan baan ku hadlay hadalkii ugu saxnaa ayaad ku hadashay dambiila baan ahay anigu wax baan dilay hadda i xukun in adeer u kacay dembiga ma tuudahay bay caddeen ma leedahay dambi aan gal waa kana caddeen anaa wada dambaya galnaa waxaa rumaynaa qaabdidaa mudane dee anigu dil baan geystay hadda baan dad soo dilay waan dilayaa haddana hallay xiro baan leenahay mudane waan ku salaam xeer ilaali sidee tahay siday wararka igu soo gaarayaan dembiilayaal fara badan ayaa maxkamadada soo buuxi dhaafinaya iyagoo intooda badan u baahan in la xukumo laakiin xukunka loo baahan yahay in la marsiiyo ma ahan midka maxkamadda ee waa midka bannaanka yaalla sababtoo ah maxkamadda haddii la geeyo mar walba oo xabsiga loo gudbiyo waxaa laga yaabaa inaan ciqaabtooda la marsiin sida hotel 5 star inay ku sugayiin oo kale ay iska raaxaystaan taasna annaga diyaar uma nihin waxaan rabnaa qofkii qalad gale in ciqaabtiisa la marsiiyo in sharciga la maro soo maha sharci la'aanna wax dhaqan galaya ma jiraan sharciga wax walba waa in loo tiegsadaa marka isdeji okay waan idin salaam officers run ahaantii maalmahan waxaa la bartay in jaabadaha la buuxsado lacag fara badanna la qaato saasay tahayna waxaa waayadan dambe soo badanaya saraakiishiiba inay ka mid noqdaan dadka magaalada ugu taajirsan
cadadda mushaharka ay qaataan markii 15 sano la isku dhuftana ma gaarta lacagta ay haystaan wax waa sameyn karnaa laakiin sharciga gacanta laga xiraya laakiin sharciga hadda gacanta loo furo wax walba hortaada keenina tuugada dhammaan waa soo qabeynaa qof walbana xabsigan dhigayna taas miyaad aaminsantiin haddaba fasaxayaatiin shaqada nigalama baahna inaad qabataan waad fasaxantiin sababtoo ah askari cabsanaya ilama shaqayn kara aniga war anaga waxaan qasaa siyaasiyiinta haddaba mid sameeya siyaasiyiinta laftooda waa in la mashquuliyaa oo laga soo saara lacagaha madow iyo daabyada u xaraysan aysan iyaga xaqa u lahayn hantida dawladda ay xaraysteen ha laga soo saaro dhaqsida barkadan biyaha laga saaro sida ugu dhaqsiyaha badan sharciga waa uu isbedelay wakhtigii aniga ku soo beeray wax walba waa ay caddaadeen waxaa yaraaday dulmigii waxaa yaraaday musuqmaasuqii waxaa yaraaday kulkii faraha badnaa warkaale adiga ma waxaad ismoodaa hantida dawladda inay hooyadaa leedahay hadba meel markay aad ka dhiganayso adiga sheeg bal taas ayaan ku weydiinaya teeda kale adiga lacagtaad isticmaashay xaaskaaga lacagta isticmaashay cunugaaga lacagtu isticmaal markii wada ahaan la isku daro mushaarkaaga 20 sano waxaad qaadan lahayd ayaad hal bil ku isticmaashaan sideed taas suursagal ku tahay ii sheeg bal midaasaan ku weydiiyey xaggeese waxaasoo hantiya ka keentay haddii aanad isticmaalin xaqa dawladda ay leedahay waxaa jira wax badan oo ay dadka ogayn balse aniga aan ogahay waxaan kaloon ogahay adiga in aad leedahay keedad fara badan oo lacagta ay kuga xaraysan yihiin balse waxaan u baahnay xaqiiqada dhabtaa inaad sheegto iyo meel walba ay wax ku yaallaan akoonkaaga waxaa ku jirta lacagaan inaba caadi ahayn war caddeena loo baahan yahay caddeyn ma haysataa bistoolo haddii aad soo qaato wax walba inaa ogaanaysa may kula tahay ii sheeg bal taas miyaad u malaysay aniga inaan halkaan kugu imid aniga halkaan baryo umaanan iman waxaan u imid inaan xaqiiqada helo ama sheekadaadoo idil aan soo xidho jamtarkaaga inaan xidhana waxba iguma ahan way fududahay waxay ka tahay agteeda galaas biyaanu cabayoo kale haddaba dantaada aqoonso laba daran mid dooro inaad warqadda saxeexdo iyo inaad si daaragtiga ku toogto wasiixa ken dulli dalkiisa khiyaanay deysmadiisa waa igu dembi anigana kuma dayn kara waan ku dilayaa maanta waad dhimanaysaa lagama yaabo inaan nololkaaga sii tago maadiga haa waa aniga waxaan halkan u imid inaan kaa soo celiyey lacagaha xatooyada dawladda aad ka qaadatay ee hadda meel aad ku maalgelisay shirkadda kombiyuutarada waad ku maalgelisay sidoo kale bangiga dhexe lacag ayaa kugu jirta sidoo kale swiiska lacag ayaa kuu taalo waxaasoo hantiya xaggee ka yimaadeen maalgelinta ku baxday shirkaddaas kombiyuutar waxaa la sheegaa lacagta ugu badan inay adiga kaa timid adigana mushaar ahaan marka lagu xisaabiyo 25 sano hadda dhiman lacagtaas ma goysid xitaa xaggeed ka keenta hantidaas ii sheeg bal midaasaan ku weydiinaya hantida inaa kuu sheeg miyaad doonaysaa caqligii okay haddaba haddii aad madax adeegtay la dhima hantida waxaan kuu rajaynayaa wakhti wacan oo wanaagsan bay bay waad madax adeegtay waxaad ku madax adeegtay inaad sheegto lacagta dawladda laakiin fiiriban waad dhimatay faa'iido maxaad heshaa hantidii way ku dhaaftay dunidana way ku dhaaftay waxaad haysa labadaba ma laha laakiin sida ugu dhaqsiyaha badan anigaa ku soo waxa weeye wax walba dhag bay noqonayaan waa caynka waa hagaagaysaa hawlweyn alo haa tani waxaan rabaa soo hadal arrin muhiim inaan kuu sheego banki swiiska ayaan rabaa inaan lacag ka soo wareejiyo oo bankiga dhexaan ku soo shubo
marka combyuter ayaan ku samaynayaa online weliba ayaan ku samaynayaa okay waxaan rabaa inaad la socoto barnaamijkaas wixii garabana aad naga siisa adiga oo kolley talo iyo tusaale ku saabsan arrintaasna sida ugu dhaqsiyaha badan inaan kusoo gebagabeeyo ayaan u baahanahay taliya arrintaas waa inaad la socotaa oo okay diyaar waa الدنيا رخيص وي ugu dambeyntii lacagihii dowladda ka maqneed ayaa suuriya dib ugu soo celiyay bankiga kadib siyaasiyiin markii ay lunsadeen run ahaantii haddana lacagtaas bankiga ayay ku jirtaa dowladdana gacanta ayay ku dhigtay wayna la wareegtay si taxadar la ii dhegaysta annaga ballan ayaan qaadnay ballanta aan qaadnana waxay ahayd xaqa dadka in aanan la dhicin waxaan ku dhaarana waddankayaga inaan wax walba u hori doonno qof walba si walba u qaato waan ka soo celin doonnaa hanti dowladeedna ma ogolaanayna shakhsi tagrifalo ama si maalaayacni u qaata taasna mid dhacaysa maa intaan annaga noolnahay waanan ka soo celinaynaa intaasoo keliya ayaan isku ognahay walaak shaam macadayne ayaa sheegde walaak admana maxay shab mar walba sidan muxuu ugu dhaqmaa isaga horta markii maxkamaddana ma ogeeno markii maxkamadda la soo baxay ilaa hadsaan isku bedeli haya awqaad waddaan ku bixin karna meesha waan helay waddo fudud isdejiya adinka goorro waa baxaysan ahey iga habartay bannaankaan xiisa u qabaa waana baxaa goordhow rajadiyaa rumowda waa socdaahe iga habartay suuriyaana aqaan waa mugu horeba aniga baadila laygu haysta maa mugu laygu soo xiraya dulmiyaa laygu haysta aniga xabadan haleeya ma jirin dowladdana xabad kama halayn dulmi waayo wax walba way iska caddiin dadaansa ka dambeeya hawshaan laakiin hadda nasiibkaa wanaagsanaad waxaanan rajayahaa maan sida u dhaqsiyaha badan inaan ka baxo dulmiyaa laygu wadaa walaalka mardhow wuu ka soo baxayaa meeshaas adinkana waxaa laga baahan yahay qallaase inaad ka abuurtaan magaaladoo idin aniga waxaan u baahanahay magaaladoo idin in la gubo mudaaharaadna laga abuuro si dowladda arrintaas ay ugu mashquulsho مدنينا مدنينا عيتين مدنا أسا سوريا أسا إماتي أسا سكوبينا أكيد أسا سديوي أنك أسا كوبينا كم بترول أسا حاجة إيوتا حسمينسا إيدا ويلكا إيدا ويلكا أكو بريا كالي من قلالاسا ديقو صدريسا midka kalena garabkaaga ayuu taagnaanayaa soo maa labadoodaba waxaad u soo wadatay inay foodii buuq meeshan ay ka sameeyaan wax walba aabinaya idin hogaaminaya haddana saasay tahay isaga ayaa baqaya warkaale adiga carruurtaada haddii aad u baqayso maxaad carruurtooda waddada ugu soo diraysaa kuwaagaa midilaya sugbal waa ku baryaa mudane ma aragtaan siduu carruurtiisa ugu naxayo idinka ayaan ila soo hormarinaya waxaan igala dhigayaa gaashaan dabadeeta waa iska soo dabagelaysaan dhibaatana idinka ayaa idinku dhacaysaa bal maanta wejigiisa dhabtaa arka waad soo raacdeen laakiin ma doonaya carruurtiisa inay dhibaato soo gaarto ee waxa uu rabaa inuu idinkeeda ku difaactamo oo keliya dhibka idinkeeda gaaro dowladda idinka inaad iska hor timaadaan qallaaso walba oo dhacayna waxa uu rabaa idinkoo keliya inuu dusheeda ka saaro caqligiina ha shaqeeyo kolley walaalkaan taageersanaa usugaan taageersanaa cawi maalin usaan taageeraynaa naga wareeg على شو شقست ولا سوريا
يسوق النصيب من النصيب تهبري بالبادي من العرف لا هواسي عيشة مناك لنا هي يقرسي بهواي نسيم نس عروسي عشرة وهاي هوا يدعى تيجا خبرتي هدون كان وحكوسي الله afartii eedaysane ee lagu soo eedeeyey dilkii krishna ayaa mid ka mida uu badbaaday kadib markii afartoodii saddex ka mida la daldalay midkii afaraadna uu daldalaadda ku dhiman waayo uu badbaaday sidaas awgeed maxkamadda way iska sii daysay waana la fasaxay هاي الدنيا وايس كاساس لما دمش الله بلما دمما لنا الله وايس كدما انا يروا كرا وابد بعدي بدبات عارف هيك هاي لابتيجي ها لو مليونات قاده حرقان قفك هدي لو جلعيو الترتيب مو ديما هاي هدي لكن وادكي واديما marka xariga ma ku adkeeyahay waa tartiibya sis usi asku dhimanin ay beesada qaaday boogaya iska baxa lacagtaada waayse qatarata ii taaga adiga aakhiraagteeda iga soo celishaana aakhiradan ku dira sababtoo aniga adduunkan inaan ku sii ciisan raba adiga minaad nooshana cadaynaad igu taaniga وسلامتين والله وصول بصانقة هاي دمي واخا صوتهم واسكا نافع مركا اللي يعافيه واي لكن دمشات وكبد بعد والله قال لي حليل دمي عقابتي سوا صومر كو laga yaabaa jismi ahaantiisa inuu isbedel laakiin dabeecadiisa marnaba isma bedelayso adigana sidaas oo kale ayaa tahay dabeecadda isma bedelayso aniga waxay la tahay qaabka adiga dhimashada aad uga badbaaday inay tahay qaab qiyaano leh ahay waa saxan tahay shabeel si fudud in lagu ugaarsado waa adag tahay maxaa yeelay geeda fuulka xataa waa yaqaan anigana shabeelana waxaad rabtiin cunug saqiir camal inaad ugaarsataan qoorta iyo cajiimaysaan habarteeday ka tahay aniga tartiib laygu dili ma karo aniga dad badanaan suufiya qaar badanaan layaha laakiin hadda suuriya minaad rabto inaad aniga ga badbaado ciyaarta waa kuu seeta dheerayaha ciyaarta aniga iyo adigay noo dhexaysaa waxaana kaa rabaa inaad adiga waddadaada raacdo minaadtayda ku soo lifaaqatana waa noo mar kale eyga sidiisaba marka uu waasho marnaba suurtagal maaha bulshada in lagu dhex daayo waxaa qasab in bulshada laga dhex saaro midkanna waa u waashay waa qasab in bulshada dhexdeeda lagu dilaa taasna waa waajib saaran aniga waanan dilayaa wax walbaba ha igu qaadatay waxaa waajib iga saaran yahay noloshiisa inaan soo afto nerb waxaa kuweydiyaa oo isqorshaaga labaad maxasiyaa ii sheegbo aan ogaanay annaga waxaa qasab noo ah inaan hadda jawigeena dejino sababtoo ah anaga sharci ahaan wax kuma qaban karna waa inaan wax kala raadina oo keliya anaga waxaa qasab nuga wax walba inaan si degan ugu fikirno oo aragtiyada dhaadheer aan adeegsano markaas wax walba way noo hagaagayaan idana waxaa qasab nugu aragtiyada dhaadheer inaan adeegsano markaas sidaan rabnaa ayaa wax u qabsan karnaa looma baahna nidaamka hore iyo sistamka hore inaan raacno sababtoo ah sistamka hore waa mid duuga gebi ahaantiisba aniga kama helin maxaa yeelay booliska burcadda ayay ka cabsanaysaa burcadda booliska kama cabsanayso booliska sharci ayaa qabanaya base burcadda sharci aan ahayn in maxkamad la saara kadibna xabsi la geeyo oo kale maba jiraba ninka booliska waa la tooganayaa balse saasay tahay ninka burcadka ninka booliska ma toogan karo uma baahni aniga sharcigaas hore waddadaasi waan iska leexiyey sababtoo ah waxaan rabaa midka hadda cusub inaan isticmaalo qofkii dembi gala isla wakhtigaas ayaa la ciqaabaya iyadoon maxkamadii saldhig lala sharcigeena waa mid curduna waxaan u baahanahay qof walba inuu faafiyo si dadka horena ay ugu wada qancaan markaas annaga wax walba way noo hagaagayaan sidaan rabnana wax waan u qabsan karnaa annaga teeda kale waxaa qasaba hal mid inaad fahantaan middaasoo ah inaan annaga
xuquuqdeena ilaalino sababtoo ah haddii annaga xuquuqdeena aan ilaalino xuquuqda shacabkana waan ilaalin karnaa annaga haddii nagula soo xadgudbo maahan inaan gacmaha isa saaran ee waxaa qasaba inaan tuugada baabi'ino lagu sii qaadiya doorasha waxba ka qabanayn maxaad noogu dirtaa haddaya doorashada maxaad ka gashaata waa horta adiga xabsiga ku jirteen see camal see doorasho laga aqbala ma laga yeela unak maan daliye yaa kaa yeelaa walaalkay hadda xabsi ka soo baxday yaa ku dooraa ad tee kan lacagta waa bixisi aryaha idinka jaqjaqaad maha ku weysa taladan muka horo anaa lahay haddana anaa talaay wax isbeddelo mari shala xabsiga anaa gara birigana anaa ka soo baxay wax walbana saa u rabay u dhacayaan teeda kale ninka hawshaan igu soo filaaqiya anaa aqaan sidaas kaga qabaan idinkana waxaan idinka rabaa hawsha intaan idinka dirsado keliya inaad qabataan halo ay waxa waaye suuriyaha inaan la kulmaan u baahanahay minow ila kulmi waaye ma tahay hawdiisaan kacaa been kuu sheegi maa way isla hoogaysin waxaan rabaa arrin muhiima inaan ka wada hadalno aan isku nimaano suuriya anigii soo raac filimkan waxaa lagu turjumay raja cable t v muqdisho suuriya aniga waxaan halkan kuu keenay ninkan 9 bool ka furan waxaan rabaa inaad wax fahansiiso asaga wax uu fahmaayo ma lahan aniga waxaan rabaa 10 lama iloobaana inaad u dhigta adiga wax walbana siday yihiin aad ugu sheegta adiga la hadal ma og tahay adiga inay halis hareeraha ku hadaaman tahay teeda kale aniga godkayga ayaad ku jirtaa ilaa iyo haddana meel aad ka aadi kartaa haba yaraatee ma jirto kalex wax walba runta waa la ogaaday hadda runtana ninkan iyo gabadhanba aniga ayaa u sheegay aniga wax walba way ogyihiin adiga sharcigaa ku xadgudubtay xabsigana si qayaano leh ayaa kaga soo baxsatay lacagaa ku soo baxsatay sharcigu wuu og yahay qof kastana wuu og yahay wax in aqriso looma baahno ninkan hadda intay ka gelaysa anigaa sheegay runtina kuu sheega anigaa rabo wax walba iga duuxisa haddii hal mar le waa xadeena ninkaas waa dilaa wax walba kaamirada soo qabo hadal mudane ninkaas khayaano ayuu xabsiga kaga soo baxsaday ninkii oo markaasi wax daldalaya ayaa lacag fara badan la siiyey 2 milyanaa la siiyey 2 milyan ayuu banaanku joogaa ninkan aniga u sheegay ninkan dambiile waay waa dhammaysatay wale maha haddaan ku buusbuusan sida niman ayaanta dhow buusbuusi rabo annagoo idil waxaannu ku wada heshiinay qofkii khalad naga galaa inaannu ciqaabno soo sax maan qof walbana wuxuu raalli ka yahay in la ciqaabo qofkii khalad gala ha noqda ra'iisul wasaare ha noqda wasiir ha noqda xildhibaan cidduu doonaba ha noqdee waxaan dhammaanteen isku wada afgarannay inaannu ciqaabno ninkanna waddadii ayuu marayaa yaa ka soo hor jeeda waddadaas ii sheega bal yaa diiddan oo aan oggolayn inaan ciqaabtaas marsiinno yaase raalli ka ahayn middaas ayaan u baahanaha inaan ogaado maxaa yeele qof walboo idinka mid a khalad ayuu idinka galay anigoo keliya khalad idinmuu gelin shacabkoo idin ayuu khalad ka galay waddankoo idin ayuu khalad ka galay sharciga ayuu khiyaanay waxuu kaloo khiyaanay maxkamadda diyaar soo uma tihin inaad ciqaabtaan soo diyaar uma tihidiin inaad marsiisaan xukunkiisa
dhammaantiin xaq ayuu ka wada galay qof walba waxa uu moodaa inuu ka baxsan karo sharciga misena uu ka awood badan yahay laakiin qof walba maalin ayay tiisu timaadaa maalintaas waxay noqonaysaa maalintii ugu dambaysay maalintii ugu dambaysay uu dembi galo maalintii ugu dambaysay uu khalad galo waxay kale noqonaysaa maalintii ugu dambaysay uu sharciga gacantiisa ka baxsado hore sharciga waxa uu ahaa mid gacmihiisu gaagaaban yihin sidoo kalena indhaha ka xidhan balse wakhti xaadirkan sharciga laftiisa abdheed ayaan ku samaynay hadda gacmihiisu waa ay dhaadheer yihiin barta ugu fog ayay gaarayaan indhuhuna mar keliya haddii ay ku soo libiqsadaan way ku qabanayaan ogaada qofna lagama oggolaanayo inuu xaq ka galo sharciga ama bulshada misena bulshadaas weliba uu ku sii dhex jiro siduu doonana uu dhaqmo maxaa yeele annaga waxaan diyaar u nahay inaan ka hargudno haddii uu ahaan lahaa sarkaal iyo haddii uu ahaan lahaa wasiir cidna lagama oggolaanayo maanta ninkan ayaa ciqaabtiisa la marsiinayaa berina waxaa ku xiga ninka kale khalad gala armaya armaya abomaya armaya ciqaabtiisa waa uu maray qof walbana sidan oo kale ayuu ciqaabtiisa u marayaa haddii uu khalad naga galo qof hindiya ma oggolaanayo in halka ka dhextaa qalad laga